gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir Marwo Basma Camri Jaketi qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyin gobolka Banaadir mas'uuliyiin kala duwan iyo waxgarad Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb galay kulan muhiimadiisu ay ahayd xoojinta nabadda iyo garab istaagga dowladnimada iyadoo dadkii halkaas ka hadlay ay ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed in xiligan adag ay gacmaha isqabsadaan isla markaana cashar laga qaato dhowrkii sano ee waddanku burbursanaa waxa ay sidoo kale ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed in laga wada qayb qaato sidii Soomaaliya ay ula mid noqon lahayd wadamada caalamka ee hormaray degdeg aan ka soo jeedino una jeedino dawladda Soomaaliyeed iyo dadka ka soo horjeeda damaca siyaasadeed leh dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa in nabadda loo dhaga nugulaado dada diyaar u ah in ay xamar ku soo caliyaan dagaal ilaahay kama aqbalayo insha Allah waxaan ilaahay ka rajaynayaa dalkeeni iyo dadkeeni in ilaah amaan buuxda na siiyo annaga mar kastaba waxaan garab siinaynaa cid kastoo samaha Soomaaliyeed garab siinaysa cid kastoo Soomaaliya horumarkeeda u ehel ah in aan u rabno magaalada Muqdisho kaliya ma aha waddanka dhan aan u rabno nabad iyo deganaan marka waxaan leeyahay waddanka wuxuu u baahan yahay nabad bulshadan beesha shanaad oo aan ku matalno dawladnimada waxaan rabnaa in aan lagu oorkacsanin hortoodana aan dagaal lagu horkacsanin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamul gobolka Banaadir Marwo Basma Camri Jaketi ayaa fariin u dirtay qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uma dul qaadan karno in caasimadii muraayada dalka lagu dhex dagaalamo mana ogolaan doono annaga haddaan nahay beesha shanaad dadka ugu dhibka badan ayaa nahay oo ku nool magaalada haddaad aragteen dagaalkii 91 dhibaatadee u geysatay dadka ku nool beesha shanaad degmooyinka ee ku nool yihiin ilaa iyo hadda burburkii ayaa ka muuqda guryaheena markaan ka soo baxno caloosha ayaanu hurayso uma dul qaadan karno waxaan arkayno ayadoo hadda iftiinkii soo shidmay oo dalka dib u dhismay magaalada dhisantay meel walba Soomaaliya ka mid ahna horumar ka socdo in hadda la yiraahdo 91 ha loo noqdo iyo burburkii ha loo noqdo kaasi waxaan isleeyahay maangaabka ayaa qaadanaya maahane nin aqoon-yahan ah wax garad ah siyaasi ah u turaayo dadkan iyo dalkan inuusan sameyn karin waxaasiiti waxa ugu badan dhibaatada soo gaara waa hooyooyinka Soomaaliyeed waa caruurta Soomaaliyeed waa waayeelada uma dul qaadan karno qax shalay haddaad aragteen dhibaatada dhaceysay waxa qaxayay ordaayay dhibaatada gaaray dadkii ugu nugulsanaa bulshada oo ka mid aha hooyada caruurtii dusha ku waday mid kale jiidaysa waayeelkii wadaa annaga haddaan nahay siiba hooyooyinka Soomaaliyeed aadee noo dhibeysa dagaalka fadlan ciidamada ammaanka oo loogu talagalay inay sharciga ilaaliyaan inay ammaanka ilaaliyaan inay dadka ilaaliyaan inay dalka ilaaliyaan inaysan u loogu orkacsanin la dhihin dagaalka gala Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.